السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتها شرفت لهي وها مسكينك الله ولكن عبد الرحمن بن عبد الله بن حاجي أؤذن له. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiina oo ahlu iimaana oo ahlu taqwa ah. allah waxaan ka baryaynaa inuu na siiyo dulqaad. allah waxaan ka baryaynaa inuu na siiyo kaadsiinyo degdeg la'aan, dulqaad iyo kaadsiinyo. waad garanaysaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ninkii saxaabiga wuxuu ku yidhi inna fiika khaslatayni ama khullatayni ama khallatayni ama khaslatayni yuxibuhum allah alxilmu walanaa. waad garanaysaa saxaabigii jaliilka rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siiyey laba tilmaamood, laba akhlaaq oo fiican, laba dhaqan oo fiican: alxilm, dulqaad, iyo walanaa, kaadsiinya. soomaalidu waxay tidhaahdaa hadday degdegsiiyo door dhalaan, kaadsiiyana kiish lacagay dhalaan. xadiidkan waxaan xasuustay, maantaan xasuustay maraan maanta la kulmay anoo makhaayad halkaana. waxaan joogaa indianapolis, waan ka khudbeeyey jimcihii shalayto. marka makhaayad halkaan oo gabdha isaaq ay leeyihin oo fiican, oo gabdha aad u sharaf badan oo duriyadda ah baan soo maray. marka horteeda waxaan kula kulmay kuwa lagu xantay inay yihiin qur'aaniyiin oo mareecaana haddii laakiin sunnadii rasuulka ka cararahay. mid doqonoo mareexaana magaciisa iga runsaya talow adanow yuu yahay reegadaa aranow reegadaynu yaan malaynayo yaa ii yimid wuxuu yidhi waa bilaabayna casharkeena. wuxuu yidhi kan inaan xabsi ku galo aan ka baqayaa buu yidhi. waa mareexaan ogow yaa, waa masaajidkan qur'aaniyiintu ay leeyihin buu joogaa. kan inaan xabsi ku galaan ka baqayaa, dulqaadku si u fiican ayaan ku tusayaa. saasaa inta u dhugtaan waxaa idhi carruur baad leedahay baan idhi, aabbayo hooyaana ku soo dirsaday oo halkaan ku keensaday. aniga oo aad inta derbi ka soo dhuumato qaar madax halkaa igala dhacdid ama aad bastoolad xun igu qabato maxaad ka helaysaa aan idhi xabsaad ugu gasho. wal u fiirsayaa, wal u fiirsayaa. ninkaas soomaaliya hadduu joogi lahaa waa idin lahaa ka war. dadkaan xayawaan weeye, marka bahluulo wey dadkaanu. dadkaan waa xayawaan. dadkaan waxaad u qabtaan soomaalida waa wada dhiigyacab bay u badan yihiin. anigana waxaa lagula yaaban yaha waa intaas. suxufi waxaa waa dhiigyacab, sheikh waxaa waa dhiigyacab, madax waxaa waa dhiigyacab, oday waxaa waa dhiigyacab. wax xalaala soomaali waa ku yelihiin. waa jiraan dad fiican oo soomaaliyeeda, qabiil kastana waa ku jiraan. meeqa weeye kala bar carruur dheh, inta soo harta bar ayagana haween dheh. raggan ka hadlaynaa qangaaray
boqolkiiba 37 ragga Soomaaliyeed waa khabiifiin khubatha weey marka see ninka Soomaaliyeed ee dhigyacabka ula dhaqanaa waxaan kula dhaqmaynaa hadii Ilaahay ku idmo walaalayaal akhlaaq fiican baan kula dhaqmaynaa حايلي ما من شيء أثقل في ميزان من حسن الخلق ميزان ما أنت قيامه واحد كعليس بدل ما جرت يعني أخلاق في عن علماء أخلاق في عن ولا ليال وحيكون شيئين dadka oo aan dhibaato loo geysan wanaagaaga iyo ihsaankaaga la gaarsiiyo iyo dholaadaynta midaan waa tii maraykanka wey waa la garanayaa qofkii yaqaan waa garanaya midda halkaa gaaraysa iyo midda halkaa gaaraysa iyo midda qalbiga ka soo baxaysa midda qalbiga ka soo baxaysa iyo midda halkaan oo dhan baa soo gudbisay waad fahmaysaa qof caraysan inuu yahay أخلاق في عنا الله نسيب والله ليال hello yes ها والله اللايف بان كجرا ما هذيك روايس خير بان waxa ka saalaysa Indonesia ها محبا كدر سنسا برنامج قوايا هذا اللايف بد كجرتاي ولا استراليا كسو هلينا استراليا دب بدن با كجرتا maxaa jira walaalay noosh tilmaan walaalay dib ka jira Soomaalida dib ka haysta ma sixir baa ka jira ma khuraafaad baa ka jira ma qabyaalad baa ka jira maxaa ka jira walaalay sixir baa ka jira qabyaalad baa ka jirta inamadiyo hablihii aan guursanayn oo bashaqaystayaal jooga Australia all right gaalay ku baqan yihiin inamadii ma joogaan dhibaato ka taagan wax la sameeyo lama garanayo ma tumasho iyo baararka iyo kalaabyada ku jiraan ها inamada Soomaaliyeed waxa leeyahay hablihii Australia jooga ka guursada war hadaan hablihii Australia nahay hadda la guursado okay walaalay afkaaga caana lagu qabay gabdho badan oo Soomaaliyeed oo saas oo kala afka u furtay Ilaahay wuxuu waafajiyay inaan rag aan u helay ma sha Allah adiga iyo gabdhaha kalena Ilaahay waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu rag siin doono urban sameeysanayna adiga kula soo socodsiinayna wixii rag la helo hana loo keeno in adeer Ilaahay waxaan ka baryayaa biasmaa'il husna dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay caalamka ka joogaan Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu siiyo niman khayr qaba oo dhaqda oo daacad ah Soomaaliya ay gabdhihiinu waa gabdhaha ugu sharafta badan Allahna waxaan ka baryayaa gabdhaheena inuu noo asturo oo noo siiyo niman fiican oo dhaqda nimanka gabdhihii niman fiican baa tahay bulshada isku xidhaa tahay wax badan bulshada u taray baa tahay Ilaahay khayra ku siiyo haddana waxaan ka hadlaynaa waxa keenay ragga Soomaaliyeed inay cararaan waa qooq bay la carareen marka waxa loo baahan qooqi in laga dajiyo ma garad waxba ragga Soomaaliyeed raaliyooyin baanu nahay waanu haysanaa raggayna iyaga naga cararaya I don't know waxay nooga cararayaan hadhowna waxay ku dambeeyaan in Soomaaliyeed intay gaala guursadaan oo nooc walba guursadaan ay noo soo noqdaan dabcasaro wallahi in Soomaaliyeed bay ku dambeeyaan sixroolayaasha ma jira nin sixroolaa oo Daarood Ismaaciil oo dhawaan soo galay Australia والله waxa Soomaalida sheegaysay laakiin bismillah waxaas ma arag laakiin wala sheegay maxaa sixir qaban kara war meeshan waa la isa sixray oo nooc walba yimid oo dhibaato taagan oo qurbi khaatiyaan baa laga taagay waxaan dhibaatadan badatay nin ka yimid Jilib ilaa Tamaame ilaa Kismaayo area oo beesha ogaadeena ma jira والله ما قرني لكن أقادين بدنا دقن أستراليا هاسك قبطان وحيران وحسحرية تتكوده aad badan baa santahay waa ka warhaya Australia ninkaas laakiin wallahi Australia dibata ka taagan in ma reer Australia way shaqaysanayaan
hadday kii shaqaystaana waddankiisii waxba kama soo qabsanaynan kala soo lugoynaya meelahaasuu lacagtiisi baari uu ku dhameeyey meelahaasuu kasoo tumanaya maxaa u diiday gabdhaha soomaaliyeed Australia jooga why fadlan waa maqlaysaan ragga Soomaaliyeed gabdhihii Soomaaliyeed ee Australia Europe meel kasta Mareykanka raggii Soomaaliyeed haddii ay ku idmaayo ayay goobayaan raggiina gabdhihii bay goobayaan yani waxyaalo badan marka waa loo baahan yahay in la isfahansiyo dhalinyaradii oo si kala fogaanaysa waxaan ka baryaynaa in Soomaaliya la isku xidho oo annagana Ilaahay nimo fiican oo keeno oo Australia oo meel kasta anagu waan shaqaysanaa baasabooraan haysanaa wax baan qabsanaa diin baan leenahay inaan helnaa rabnaa dadaan dhaqanno gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan baan u hadlayaa dabacsan wiilal badan baa isoo wacaa hadda nin waxaa jira maalintii dhowr jeer isoo waca Cabdullaahi baa dhahaa dalka Qatar buu joogaa waa nin dhalinyaro oo shaqaysta oo single oo xaasan lahayn ninkaasi yani xataa dibad ma reeb ku leeyahay ma jirtaa gabar gursanaysa ninkaas waa beesha habar gidir hadii la isku ma jirtaa waa dhalinyaro waana single qabiil ma jiro dabcasar ma jiro waa ku sheegay waa Soomaali waa saaxiibkay fiiri anigu daarood baan ahaa daarood waxa la sheegaa laakiin ninku waa saaxiibkay waa nin habar gidira dalka Qatar buu joogaa hadda way maqlayaan dooxa ayuu joogaa way joogaan hablo fiican okay ninkaas waa nin single waa nin dhalinyaro waa nin murqaweyne ah waa nin daacada waa nin masaajidka aan ka bixin waa dhalinyaro waana single he's ready gabadhii marka diyaar baana inaan ku soo xiro ninkaas rag badanna way jiraan dabcan waa diyaar teleefankayga halkaas kuugu reemayay from Australia lambarka soo sii wiilka gabar waa loo helayaa waa la hayaa diyaaraa leeyahay ilaa adoo adaa gabdho doonaysa waa la hayaa walaashay insha allahu tacaala hopefully numberkaaga sugaan qortay numberkaaga meeshaa ka helaysaa kole hadhow markaan qadka ka baxo ما سوسة يلومن أنا عبد الله هنا طبعا وأي مقليا وأنا يصدر يا تلفونك إن شاء الله تبارك وتعالى أستراليا أنا عبد الله وأي مقليسا وأنا ندل يراه قبر أيات ترتي دور عرورة هي ستي ما شاء الله ولا شن ويل بيه الشيء أيضا ما شاء الله وقبل كلا أيات شراء أيضا مارتي كندا ويلو كدري عشر وحابلود برنامج في عنا تكون تدي نمضي حابلها إن تقولي إلهي تستيد إلهي أكل كرب قبطه آمين ولا شيء ننكاس أنت أنك أوجهي نن أهل خيرة وشقيستا أو دليرة أو عرور ربا وفاميل ربا أو دقشر ربا وي قبيلنا Soomaali baan islaana hadii la ku idmaayo waan in habar gidra insha Allah ta'ala waana walaalkeen waan dhigay dhaanka habar gidra saasa inoo barana walaashay insha Allah ta'ala soo xiriirina Cabdullaahi waa kula soo xiriiraya insha Allah walaashay laakiin arrimahan kale ee Soomaali soo noqonay maxad kale da shaqada cashar maxaa kamid walaal hablihii oo la dhibaataynayo guurkii oo la xumaynayo inamadiyoon hablihii guursanaynin qabyaalada nagu soo noqnoqotay arrimahan oo dhan ولا السحر كسبب هو إلهي وحي يفرقون به بين المرء وزوجه نينك يا ناقتي أي كلا فوقينا يا سحر ولا يالكم وحن عطسنا يا ولا راهي بارود إسماعيل السحر يا وإن لقبته قبيل كستوحوا لي دد وحسن هل كان كولومبس واتشوغان حافظة كابيتال مريحان سحر ولا يالا متشرتين سحر ولا يالا سيدي أبشر وقاعدين متشرتين مريحان Australia ninkaas ogaadeen baan ka war hayaa ka soo galay jilbiya tamaame ninkan ogaadeen waa la soo qabanaya hadana nahay beesha ogaadeen ninkan waa soo qabanayna wala la iska qabta qabiilkiisa ha soo qabto dabcasar waay Soomaali maxaa loo sixraya maxaa loo dhibaataynaya dad masaakiin oo waxba geysan maxaa loo sixraya noloshooda loogu xun yahay sixirka qaarkiis waa loo dhintaa qaarkiis waa loo waashaa qaarkiis waa walidaalika diinteenu waxay noo banaysay walaal madaxdii baa sixran oo odayaashii dhaqanka sixran oo waxa sixran ganacsatadii oo dhalinyaradii baa sixran oo dumarkii baa sixran qofka soo baxa la sixraya qofka wax ka hadla la sixraya cidna la nabadgelinayn dad casar adigaagas lagu nabadgelinaynin dadkii maxaa isku qaatay waa runta walaal gabre ayaa saasay madaxa saas loo dilaya qofkeena fiican ee soo baxa ee
barnaamij ka hadla ee dadka isku xira waay loo dilaya loo xakameynaya waay loo dilaya halyeygeyna waay loo dilaya wallaahi walaalay been kuu sheegi mahaye yacni carar baan hadda ahay qax baan ahay aniga laftigaygu soomaaliga markaan arko waa cararaa been kuu sheegi maayo markaan soomaali meel fog ka arko waa ka cararaa hadda yacni I don't know meesha aan u qixi doono and I don't know ma Australia aan u qixi doonaa ma waxaan u qixi badan baad yeelatay maadaawad cadow fara badan yeelatay ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa maanta dal casar idinla jooga waa walaalkiin garta haddaad bari garan weydaan ma garan doontaan walaashay waad mahadsantahay insha allah ma halkaa iyo ruushka aan u qixi doonaa ma halkaa iyo yurub aan u qixi doonaa ma maka iyo madiina aan u qixi doonaa aan soo ducayna khayr baan ku rajaynaynaa insha allahu tacaala cabdullahina uu kula soo xiriiraya insha allahu umu maxaa lagu dhahday umu cabdullahi mise umu muxamed mise umu axmed maya umu khali khalaas umu khaalid insha allahu tacaala waan kula soo xiriiraya umu khaalid ay bishaarayso khayr baan ku imaanaya insha allahu tacaala waana salaamantahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu thank you insha allah khayr baa kuu soo socda khayr baa kuu soo socda asalaamu calaykum ilaahay waxaan ka baryayaa gabdhehena inuu noo asturo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu niman khayr qaba siiyo kulligood insha allahu tacaala cabdalla halga habar gidiriyi diyaar garow baan ku yidhi waarayaa diyaar garow Australia diyaar garow laakiin dhoofitaan miyaad rabtaa maya naqashaad rabtaa xaas baad rabtaa soo ma saas aynoo balan saxbiyaala wax yar ma ii kaadin kartaan aan hadle all right hello hello assalaamu calaykum معاه عصبادير ما نادي ويدير ساكوبات نبض يا رجع لي مسكين قال له وي مسكين قال له لايف ما بجتا ها انا هذا اللايف كان ماشي على كجر مالنا وقحي ما فهمتي هذا ordhiya how bishaan haddaan joogo bisha ku xigta waa qaxay haddii alla idoo ma garat maya qaxina adeer mid kale ku sheeg ku waaninayo adeer 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 biskoolad ma soo gadato meesha biskoolad baa laga soo gadan karaa adeer u gacal iyo bastooladna ma raba ilaahay baa i waardiyeynaya wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa i waardiyeynaya laakiin waxaan rabaa inaan qaxo meelahaas iyo ruushka iyo meelahaasa laga yaabaa inaan u qaxo ma garat waxba anu adeerow macaana fulay baan ahay miskiinka alla lay dhahaa ninkii maarata gacanta ii soo fidiya sidii haabiil iyo qaabiil lain basadta ilaya yaddaka litaqtulanii maa ana bibaasidin yadi liaqtulak haddaad gacanta ii soo fidisa inay dishaanu kuu soo fidin maayo inaan ku dilo waxaan rabaa dembigayga iyo dembigaagaba inaad qaadato xambaarato fatakuuna min asxaabi naar okay aad baad u mahadsantahay walaalkay walaashii soo dhawow السلام عليكم وعليكم السلام روجستر سو دhowow هيا ما انت maxaa noo haysaa duubaysan soo galnay walaalay gacalisa waan ku jiraa waan ku salaamay aad baa ku sheekh dabcan waxaan ku xaqiijinayaa habar gidir waa dhigaya dhacaanka adiguna gabar habar gidir oo geesiyada tahay kor Allah ka yeela habar gidir cadowgoodana la jabsho Allah naga qabto maraxaan habar gidir hay raaco Soomaali way la israacdo Soomaali hadda ma ku jirtaa YouTube kama hadli karaa ها وكجرا ما شاء الله تبارك الله انتو عك السلامة يا شيخ طبع الصر يتبع السلامي وحا انت كسي السلامة الصومالي نبي محمد ما يقصد قوة النوشيد بقولي أفري توقع عددي ثاني والسلامة صومالي إلهي على شر السافي الله يسكغني لا وامين إلهي وحانا غبري قعموض إسقب صدار إلهي وحنا غبري إنا ولا لونو إلهي وحنا غبري إنا قبيل سكدافنو إلهي وحنا غبري إنا وطكينا وط الله نوغديقو وشي دولدنا نقضن حالا راعو صومالي هاي سراعدو صومالي أمين أنا صومالي أنا هاي قبيل قبا نقبو صومالي نبي محل أبركتنا واهاي طارونا واجعلا وانا ودحي وانا رياييدي وانا ودحي أبركتنا واكا الشيء أبركتنا صومالي طارو هوي جلاع جرين متجال صومالي إسراع امين قل الله اكبر تكبير صومالي إسراع قل شيخ أبا عسرنا وحقا عصرايا أتبعني يوتيوب يا وقراء وانا كنت على فرما من صورة رجستر أتبع كنت على وانا كوهيليا شيخ أبا عسر
dadka u wacdi qabiilka naga dhaaf soomaali israaca dheh قول سومالي اسرعدو habar gidir iyo mareexaane waa walaalo cid isku diri karta male wixii cadow ku ahna allaha naga qabto الله انك قبت امين ما شاء الله تكبير ولا سراعي ما شاء الله ما شاء الله soomaaliya israaca soomaaliya walaaloowa walaalayaalo waxaa laga joogaa 1991 sano wadankeen wadan qani waaye dib ooshiyaa ku yaala cuntada firaash waaye ilaahay waxaa noogu baryaa soomaali nebi maxamed caloosho saasi allah iskaga dhigto امين qabyaaladna wuxuu yidhi maxamed maxamuud tibacad ilaahay u naxariisto wuxuu yidhi qabyaalad waxma tartay waxbay dumistaa marka soomaali israaca somalilaana ilaahay waxaan iga baryaa inaan soo raacdin walaalahin baa tihiin waan jecelnahay ana dhihina reer koonfur waa ka go-ina hanaga go-ina soomaali waa soomaali diintina maxamedaa ku wada dhalanay dad islaam baan nahay dad waxaan ka soo jeednaa wadaado dad waxaan nahay sunniyaan nahay shiica ma nihin hal luqadaan ku wada hadalnaa ilaahayo soomaali israaca ilaahay waxaa allah naga qabto xiisabna allah naga qabto soomaali israaca madaxweynaha sharafta lana hala raaco farmaajo waa nin fiican waa nin sharaf leh waa nin qaali waa nin soomaali wadani waayo hala raaco hala guuleysto ما شاء الله ما شاء الله ادونا قوليسو خيرك ادون يا خيرك اخره والله قصيه دد يا دين يا دنيا والله قصيه عرورت الله كو بركيو الله كافرحيه فرج الله كو فرق قربنا الله كقاد ومد anigana sheekhdaba casar waarkii aad jeclaatahay naga jooji qabiilada ka baxsi daahirbiija iyo odaga xunoo ninkaa jajabano aqaan ay carabi waxaas ka bax dabacsa aabbaa nin la yaqaano waayo waxaan teganeedar wax dheer wuxuu soo deg aabbaa cabud waaqi xoolaa laga dhacay dukaana dhacdin iimaanu ahaa history aabbaa waa laga sheekeeyey maasha allahu hooyada historyga waa laga sheekeeyey soomaali israaca la iska dheh qabyaaladna iska dhaaf camalka shaqayso adduunka waa laga tagaa qabriyana sugaayo laba mitir waxa adduunka ka sameynaan horkeena marka ilaahay waxaa nooga barya aduna sheekh dawac saro qabyaalad iska jooji waana ku salaamay soomaali nabi maxamedey 414 cabdigiisaan ugu salaam faraba minnesota register gabadh habar gidir aamino السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله علي يد ودرتي بيش سيافر قدر اوت يوتيوب كان اركي صوت أنا ما قال لي داير على سوا هذا الله بحي عشرة دار أو قصري والله يا روب اليوتيوب داير على سوا كل شخص عشرة داي I don't care مركا أصلا سوق قلني هذا سوق قلني عشرة ما سوق قلني يا صومالي ولا ما كم مغلسة إلى كل يسمى قلدت كنا وما كنا جيسنا هي أنا دار عرسو وحيد قلت عرب وحيد قلت أنا صومالي عربان خير الله كسي ولا شيء ولا سوق قلني عشرة إن شاء الله واي ولا شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبر الصوماليات أو دارتي بيش هسي هبر قدر وكسوغن مقالة الروجستر قبل كاسي من السيطو دال كاسي مريكنكا وقبر مارتي ودو عايز الصومالي وي الله أنا وبر السيئين ووافتي خيرك الدنيا خيرك حقيقي برنامج حيث لا أيام ما أنت إيدين هاي لكن دي ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وفي عنا ولا لا الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام المعطي ده هذا الدي وكسوينا ودتك كله يسري هذا all right and برنامج كيني أيينو قلنا مرك بارك الله فيكم إذنكم حسن and هلو هلا شيخ والله رزق ما جرتي والله ايوه رسيت حالك وفي عنا والله قاعد هلو صدو صدو السلام كبعد وعليكم السلام صدو هذا
يا يا والله من مزدور السلام عليكم وايا مزوري تلاض محي تاي وعام كله يعني وعشركم كذا كلا عشركم بكره عشركم alright السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشركم and walaalayaal qiimaha iyo qaayalow dadka qaar ba waxay soo qorayaan waxa aad sheegaysid yani waa zinada iyo qorona iyo bad ka sheekaynaysaa walaalayaal anigu zina kama sheekeeyo ilaahay baan ka maangalay waxaan ka sheekaynayana waxa weeye waa wanaaggiina iyo sharaftiina horta waxaan idinka codsanayaa gabdhaha Soomaaliyeed inaad gursataan dhibaatada dhalinyarada Soomaalida haysta waxa weeye هيا أدر معنا هذا الواي هذا هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام واي أدر صو هيا هذا الأدر قالي dadka ku wareerinayo hadda ma hadirtaan iska jay waa soo gal kood laakiin casharka hadda aad meesha ku soo qortay iyo mawduuca ka hadlaysay isma lahan bal casharka inaad dib ugu noqoto isku day casharka waa galayaa adigoo kale ay soo wacay maxaa sameeyaan marka ha u qabanina ha u joojinina hada waay adigu waa hadash adigu hadda waa hadash ayaguna waa hadleen see adigana kaaga qabta ayagana aan ugu qabanayn maya waxaan ku sheegaa mataqaanaa mawduucaad ka boodaysaa mawduuca si toosa inaad ugu jirtaa ka wanaagsan inta aad meel kale aadi lahayd tee maba aadina dadkayga iyo shacabkayga waa inaan ra'yigooda dhegaysta laba gabdhood baa hadda hadashay gabar si fiican bay u hadashay raggii Soomaaliyeed baan u baahannahay guur baan rabnaa xalaal baan rabnaa hana guursadeen casharka ka fiican xaggee maxaad ka leedahay arintaas raggii hana guursadeen maxaad ka leedahay Soomaaliyeed gabar kule inta badan ba dumarka sanadkan jira ma aragtaa qurbaha ku nool uma eka dumar guur u soo jeeda daacad u ah waa inta badan ba dumarka yani dadka yani sida qaldan wax ugu fahma qurbaha markii la yimaaday yani waxyaabo fara badan cudurro fara badan ka dhashay kalsooni darro ka dhalatay waxaa ka dhalatay wasaqnimo oo aan la arki jirin waxyaabo qaldan ka dhashay marka yani waxaan kula talin lahay gabdhaha Soomaaliyeed inay yani guur xalaal ah ay u bareeraan ay iska daayaan ragga jeebkooda inay ku xisaabtamaan amaba ay ku xisaabtamaan guur contracti ah oo qandaraas inay ku xisaabtamaan jeebkooda maxay ku xisaabtami waayeen ilaahay baa masaariifteeda iyo marashadeeda iyo cunitaankeeda iyo cabitaankeeda iyo nikaaxeeda iyo sariirta in lagu dharjiyo ilaahay baa waxa ay leedahay waxaa ka horeysa in si xalaala loo raadiyaa ka horeysa laakiin markii masalan ay tahay ay ku xisaabtanta ay leedahay yani caawa ma nagii kartaa casho amaba jaaga sanadka jaaga isbuucan ku soo dhacay wax miga sii kartaa yani waxyaabo fara badan yani inta badan ba ay dumarka ay ku dhaqmaan qurbaha markii la yimaade jiro haddii ay tahay ay ku xisaabtamayso ay mustaqbal daacad u tahay wiilkaasi dhalinyarada walaalkeeda jeebkiisa waxa ku jiro ay u anqaltaagayso si daacadnimo ay mustaqbal xalaala ay guur xalaala ay ka rabto ayadoo waa gooni laakiin markii ay tahay ciyaal suuqnimo ay qaab kale jeebkiisa ugu xisaabtamayso مثلا dumar waxaa jira ayagoo la qaba rag kale tashaxaadayo ee la tumanayo ee raacayo ee hoteelada la tagaayo ee guriyooda ka soo tagaayo yani taasna ayada waa mid kaleeto ma naag la qabo baa rag la tumanaysa hotel la geysanaya way dhacdaa wallahi billahi tallahi way dhacdaa marka dumarka inta dumarka Soomaaliyeed ee qurbaha isugu yimid waxaan ku waanin lahay in ay ku ekaadaan iimaankooda يعني نيكي أي أوبرتي أي جرو بشيء يعني كو إكاتو أنا كو حساب تمن ركنا تجيب كل أنا كو حساب تمن أولاد حلال نحي رادسو معاكو كلفة يا ناقل قبائنا يوتيل أورا على نين أو يدي لا يستوشر متنغط هذا رجع عليه إيمانك يا كتري إيمانك يا كتري
gurigeeda waxa laga kariyo uma muuqdo waxay u muuqdaan meel kale waxa laga kariyo u muuqdaan naag la qabo oo iskala ballaqaysa yaa naag la qabo oo iskala ballaqaysa oo hotel la geysanayo way dhacdaa boqolkiiba boqol waxa loogu yimid qurbaha loogu yimid Soomaaliya markii la joogay maya ma gabdhahoo dhan saas maaha waa jiraan baa dhici kartaa laakiin gabdhahoo dhan maahan uma qadfi karno anu ma dhihin gabdhahoo dhan ma dhihin laakiin kuwa yani fara ku tirisa ee akhlaaqda yani ka luntay way guuxaana way joogaan inta badan gabdhaha Soomaaliya bariga hore gabdhaha Soomaaliya gabadha markay meel aadayso ay gurigeeda ay ka baxayso waalidkeed reerkeeda way ka warqabaan meeshii aadayso markii ay soo laabanaysana way la soo socodsiinayso waa laga warqabaa laakiin qurbaha waxaa loogu yimid mid ayadaba sida xoolihii caasaanta iska soo faysa ee duurka aadaysa ee habeenkii dabartana guriga leen camal fur wadato soo gelayso walaalow naagtaa wareegaysa shakiga maxay la wareegaysaa soo lama qabo ayadoo la qabo fi inta badan Yurub iyo America dumarka iyo ragga ku nool dumarka ugu tareen adigana waa ogtahay waa garta haddii ninka uu hadlo amaba yani xasaa waxaa hadlaayo dee afar nabadaa talaado booliska guriga loo soo tuuca waa garta kalsooni darrada meesha ay ka bilaabataan waa meeshaas marka waxaa wanaagsan gabdhaha Soomaaliyeed in sidii shalaytana waddanka markii ay joogeen qaabkii dhaqankii ay ku soo barbaartay ee hooyadeed ay ku soo barbaartay walaalaheed ay ku soo barbaareen ayadana ay ku soo barbaartay markii ay qurbaha imaatay in ay wax ka bedelin ay sida ay ku soo barbaartay ay ku socoto aan ka rajeynayna naagtan Soomaaliyeed oo la qabo waxa saas ugu ciyaaraya oo jacaylka khiyaanada iyo sharmuudnimada baraya soo nin Soomaaliya ma aha sawna fadaroobay rabbuna waa jiraano mid noocaasana wuu jiraa ee gurigiisa intuu ka soo soofo ee dumarka islaameed sharabtooda ku ciyaaraayo anu ma dhahayo dumarka keliya ma eedeenaayo laakiin raggu meel dhaqanaa ku jiro soo garta maaha ma waxaa jira rag badan oo ka qaraabta naagaha la qabo way buuxaan laakiin waxaa ogaataa ninkii naag la qaba ka qaraabta asagana tiisa in laga qaraabanayo waa garta dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan kula talin lahaa inay iska dhaafaan macsida iska dhaafaan guryaha islaameed in loo dabamayo ragga islaameed xaaskooda inay u dabamayaan ee maqaayadaha ay geeyaan ay soo casho siiyaan ayaduna tooda sidaasaa nin kale u wadanayo soo casho siinayo sidaas bay nin kalena guriga ugu geli doontaa ee la soo tuman doontaa cashadaanu waa wax nagu cusub casho iyo cirib xumo casho iyo cawaaqib xumo cashadatan naagku tiri cashay gee ma guursan lahayd adigu ma guursan lahayd isku dhaafee aniga haddaan wada hadalna habeenkii ugu horreeya haddaan wada hadalna israadana ka yaana lamaya soo cashayne way iga tufantaa hadday ku tiraa qaxwo aan soo cabna ka warayada qaxwo iyo saambuus iyo nakix soo cunne haddii ay tiraahdo nakeen banaankaan wada aadaynaa way iga tufantaa gabadhu waxay asluub ay ku leedahay ee sharaf ay ku leedahay markii ayadoo doorsan gurigeeda loogu yimaado gabdhaha hadda dhowrsoon aad tiraahdo waa soo socdo aad tiraahdo ayada waxaad ugu naahaysaa fadhiga garan la fadhiyo hadda meel camal garan ugu jira garan ee ku sugayso waa garta marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa inay iska dhaafaan waxaan u sheegi lahaa oo u farnaa haddii aad maanta nin islaameed aad madaxaada ku gaarweyso ama garan aad u gashato marka allaala marka uu ku arka ninkaasi mustaqbalka ama rabo haddii adiga aa isleedahay ninkaasi ku wanaaji ku soo jiido quruxdaada ku soo jiido haddii aa isleedahay markii uu arko awradaada uu arko amaba madaxaaga geeska dhinaan arko wuxuu kaa aamina sharmuut yani aan wanaagsaneyn isla wareegto ah bareeryada marayso oo aan dhaqan yani wanaagsan aan lahayn uu kaa aamina dumarka Soomaaliyeed waxaan leeyahay is-astura qofka ninka ragga marka aad rabto inaad shaqaysato ama aad rabto mustaqbal aad ka rabto waxay sharaftaada ku jirtaa mustaqbalkaada ku jirtaa adigu xaguugsan oo asturan wallahi waa run laba tallaabood in isku jirto inaad kala fadhiistaan wallahi waa run صح go ahead marka waxaan kula talin lahay dumarka Soomaaliyeed ninkii mustaqbalkaa rabo inuusan kugu soo degdegin waa inuu kaa fogaadaa laba tallaabo laakiin ninkii maanta maaskaaga taabtay
amaba madaxaaga gees ka banaan arko wallahi inuusan gabadha kugu soo laabanayn run wallahi marka gabdhaha Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed waxaa kula talan lahay gabadha walaasha adiguna ma rabtid gabar walaasha in yani inta la wada maqaayad la geeyo la soo casasiiyo يعني هذي دمرت على أي ميزة توقف يعني شخصيتي سعيد ضعيف أي تاج ولا جينا يعني هذي يعني واحد أساسا ما يسوق بالإسلام الأمور دي سعيدنا ولا شيء حل جينا مقايدة لجينا ولا صوع شكينا ناس كهذي قبل الإسلام القصة تعرفها أنا واش على قطعة آديات بعض ما صنت ورالك خير كالدنيا متك أقرب الله قصي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما صنت الموضوع عاشر خلينا نقول إن شاء الله وايد ولا لي يقيمها يقايال أو ناقتاس لقوا أو هوتيل كلاجي سرت هذه الشيء واحد ناقتاس هوتيل كلاجي يعني ناقتاس وحالقة تابتي ماشى أي ناقو آد كأوقع الصداع ninka sharmuudka oo asaguna dhilaysanayeen waxa laga taabtay meesha raggu ay aadka u kacsadaan oo ku kaliftay meel daran oo ka dhaco naagtii ninkeeda meesha uu ka kacsado xubinta uu ka kacsado ka taaban weyda balaayo kala ka taabanaysa ninkii naagtiisa ka taaban waaye meesha laga kacsado aan sheegi doonaa dartaanne balaayo kala ka taabanaysa hadii la gudbo hay adeer هذا كتاب هو إذا ماشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا صار ما لا شيء صار ولا ما هاي هذا ويل كسر الله جرمل كما قلت هاي هاي هذا قردون ما قرأت كان مربط كسر هذا سا قردون بات هلو السلام عليكم على السلام ورحمة الله وبركاته وكسرات هيا طبعا سلام الله عليك برتنيو من خيارات بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله يا ولي وعنك تطول معنا يعني هذه سموك سومالي محد كلها تلنيسا حقي قوركي من درال طيب محل هذا اوكي ما شاء الله هذا في عشاء ويتصاد برشاكل جوابها يا مبين هاي أنا كم خطيك العامية قبل سومالي هبل لو كويبا واي ولا لو قالي واي قبر وقبلهني وديجني ودعانكني نفسي عقوبة سنقول عميس يعني أيه هذا روح جو دريسة عرب قرصني مراكش قرصني أو فلسطين قرصني أو سوري قرصني أو وحول بقرصني هذا روح وقتها سكلوا من قبر صومالي واحد عم ملان والله حتى ما يجي كوكب والله ملك لها آدم بنقول له ياي بكون سلامة يا ما شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هيلين أن قبلها الصومال هيلينها لكن والله قبلك قروح بدنا مجران قبلك شرف بدنا مجران قبلك دين بدنا مجران قبلك دور صن بدنا مجران مدة يلا بدا من الحوير أموامد أيضا إزدي عضي أموامد دروغ للسيي أموامد خمر للسيي أموامد لخياني أو أموامد لقت هابطي مدة أنا وهذا أنكو شيء هاي حتى ما دوني إن كهله تلمامها الوية قانو naagta khaainada ah laakiin kaliya waxaan intaan idiin sheegay xubintaas waxaan idiin sheegayaa kaliya walaalayaal zinadu waa fasaad kabiir fasaad weyn weeye waana shar weyn walaalayaal raadad fara badan ayaana natiijooyin fara badan ayaana ka dhasha oo aad iyo aad u xunxun natiijadaas xunna waxay ku dhacaysaa qofkii sameeyay zinada laftigiisa ama ummadii bay si guud u gaaraysaa yani hadda waxay taabatay hadda yani naag la qabo dhilaysanaysa ama nin la qabo dhilaysanaya yani zinada
sida la sheegay way baatay waxaana keenaysa dariska shan ku diin diidaysa marka hore shan ku dayo shanna ka darnow yani kulligeen khatar baan ku sugannahay maanta zina inaynu ku dhacno khatar very danger mid arka mid daawada mid taabta mid ku fiirsada sida gabadha ay sheegaysa kalaabyada aadaya naagaha ninkanayo dansariska daawanaya mid dhilla suuqa ka qaadanaya mid YouTube iyo BlaTube iyo xaraan daawanaya mid wixii iyo practical si sameynaya aidiskii oo farabatay hiday dhaqan bay noo noqotay waxaana keenaya gaalada aan la dhaqanay oo dhaqankeedii aan qaadanay zinada marka way farabatay waxa weeyaan inay farabatay zinaduna waxa weey nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa noo sheegay calaamadu markay qiyaamuhu ay dhowdahay khamrada cabitaankeeda ayaa farabadanaya jaahilnimada ayaa faafaysa zinada ayaa faafaysa dilka ayaa farabadanaya ayuu noo sheegay alayhi salaatu wasalaam الهرج قيل وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل وعلامات الصغرى علامات الساعة علاماتها يرير الساعة ويان marka waxaasoo dhan waa calaamaatu saaca walaalayaal weeyaan haddii ilaahay ku idmaayo adeer wax yar ii kaada baaraka allahu fiik adeer wax yar ii kaada baaraka allahu fiik wax yar ii kaada waa ku dhageystay marka walaalayaal adeer wax yar ii kaadi adigoo maasan baaraka allahu fiik wax yar ii kaadi Soomaaliya 25261 okay Soomaaliya hadal waaye Soomaaliya kor u hadal adeer laguma maqlayo kor u hadal adeer laguma maqlayo kor u hadal afka saar telefoon kor u hadal ya هذا وحير ما ذيك إنسان خير الله ينسيه marka waxyaalaha zinada laga dheef waxa kamid ah kow zinadu wuxuu kulansaday tilmaamihii xumaa oo dhan buu kulansaday haddii ilaahay ku idmaayo ama diin yaraan xalaal miirashan qofkii xalaal miirtay aan noqonaynin akhlaaqdii oo lumaysa ghiiradii ama jalaska waxa loo yaqaano oo yaraanaysa wixii wanaagsanaa oo la aasahayo zinadu midda labaad waxay dishaa xishoodkay dishaa qofkeedana waxay dhaxal siisaa xumaan bay wejigiisii dhaxal siisaa zinadu waxaa laga qaadaa weji madow baa laga qaadaa oo mugdiya oo dadku ay arki karaan waxaa laga qaadaa qalbigaagii oo mugdi noqonaya iftiinkii qalbigaaga oo tegahaya zinada waxaa laga qaadaa faqri iyo cayrnimo ku laazimaysaa laga qaadaa waxaa jira athar daciifa waa daciif laakiin ilaahay wuxuu leeyahay atharkaas ana muhliku الطغاة ومفقر الزنات طغاadda kuwii xadgudba anaa halaagaya
kuwa zaaniyiinta ahne cayr baan ka dhigaya kuwa dhilaystane cayr baan ka dhigaya waa daciif atarkaas walaalayaal بارك الله فيكم قفكي زانية ما شرموتك حرمتي بك قاعد هيا إلهي أكتي شرفكم ما يلاني دكت أكتودنا شرفكم ما يلاني للادو أن وحكا قاعد يسا شرمون نمدو كا قاعد يسا للي نمدو مقعي وناكسنا سيدا البر أما قف عفيفة وي وقف وناكسن وي وقف عادلة ويان wuxuu ku siinayaa sharmuudnimadu oo laga qaada magaca xun waa faasiq waa faajir waa sharmuud waa sharmuuto waa inkaar qabe magac xun baa laga dheefaa waa soo wada xubinta ay haweenku ka kacsadaan oo ugu daran ay haweenku ka kacsadaan iyo xubinta raggu ugu daran ay ka kacsadaan waxaa laga qaadaa alwaxsha بهوليوبد عدلو قفك ودريميو oo laga qaada zinada wajigiisa inay ka muuqataa qofka cafiifka ah wanaag wajigiisu ka muuqdaa qofka faajirka hadduu ogaan lahaa ee ku raaxaysanaya sharmuudka iyo sharmuutada ku raaxaysanaya zinada hadday ogaan lahaayeen macaanka ay heli lahaayeen hadday zinada iska daayaan oo daacada u jeestaan hadday ogaan lahaayeen macaanka ay seegayaan iyo wanaagga iyo farxadda ay seegayaan wallahi inaysa sameeyeen wuxuu seegayaa qofka dhilayga ama dhalada ah inuu ku raaxaysto ama ay ku raaxaysto xorolciinta inay lagu raaxaysto la gabdhuuna rag waa helayaan ayaguna jannada guriyihii jannada fiicnaa ee jannaati cadnin zinada waxaa ka dhashaa qaraabagoysnimo oo qaraabadii baa isdagaalaysa waaridi caasin aan xaaraan la shaqaysto dad ilaahay oo muslima oo maaragtay la dulmo dariska naagtiisa aad ka sinaysatidna waxay la mid tahay 10 jibbaar adoo naag kale oo suuqaas taagdan ka dhilaysta waxaa ka daran xaaskaaga ama dariskaaga naagtiisii ama nin mujaahida oo jihaad ku maqan ama dariskaaga xaaskiisii aad ka dhilaysato waa 10 jibbaar iska jir ehelkii baa dayacmaya ciyaalkii baa dayacmaya marka la dhilaysto dhiiggii baa la daadin karaa rag baa naagahoodii dila boosaasad maqlaysay nin baa maaragtay ilmihii u dhalay buu gowracay islaantaas jaanis hadduu hela ka warra anaga inuu jecel ayadiisu dil laakiin cunugii buu gowracay dhiig baa la daadinaya rag baa naagahooda dila naagaa nimankoodii dilay gabadha dhilaysata karaamadii baa ka tegeysa heblaayo waa dhilo heblaayo waa sharmuuto heblaayo waa dhilo heblaayo waa isla wareegto heblaayo waa la soo casho siiyaa heblaayo suuqaa loo raacaa heblaayo guriga ma fadhido heblaayo waa isqaawisaa heblaayo haddii ay ku idmaayo baba heblaayo ayadoo qaawan baa la soo sawiray heblaayo meel bay ka niikinaysay heblaayo gabar fiican maaha ragoo dhan naaga waa rabaan waxay goobayaan gabar dhowrsoon gabadhi qoyskeedii ceebta u gudbaysaa marka ayadii kaliya ma qoyskeedii bay u gudbaysaa aan arkay daar cali soo dhajinaya ila wuxuu jecel yahay laagida loo saaro dabca sar oo xaaskiisa iyo aabaheedo waa oday miskiin oo celi dheera ah nin aan maalin wata wareesanayay oo gabadha dhalay yaa gabadh ninkii hadlay oo gabar baa laga dhacay inta maqlay iyo buulaha waa ka hadlay waa saas qisada ma aanu gabar aan ma dilay ku idmaa saxaafadii baa saa noqotay beenta ku shaqeysa dilay ku idmaa haddii naagtu marka uur ay qaado wacal qaado ka waran inkaar baa ka dhacaysa ceeb dil balaayo isfuriin yani caruur badan oo naaga badan oo lagu gursaday qurba ninka sanad walba halkaas caruurta u diray lacagta u diraya ila naagta rakalaaba qababa hadhowto buu baa caruurtii la soo dhoofinaya ayaa kanadaa dhalay DNA kan maada dhalin kanadaa dhalay kan maada dhalin ruuxa xeebta qurunka iska daya dadyo naasee gabar yahay nin kale u aaminta saa adigu nin kale u maartay gabdhahan hal dharjiyo ninka dhilayga gabar sharaf loo masaakiin oo fasaadinaya ku ciyaaraya qabaa'il baa isku dirira
dhinaca caafimaad badan bay jirka u leedahay ama aragga u leedahay ama dhuuxa ama maqalka ama ummaddii bay u leedahay zinadu markay faafto waylun lilcarab min sharrin qad iqtarab carab baa hoogtay shar soo dhowaaday qaaluu ana halak wa fiina saalixuuna yaa rasuula allah rasuulka ilaahay uma nala halaagaya iyada kuwa saalixiinta ayna dhex joogaan qaala calayhi salaatu wasalaam nacam idaa kahura alkhabath haa haddii xumaantu ay fara badato zinadu yani zinadu hadday fara badato waa laydin halaagaya zinadu waa wax xun aadaan gelaynaa casharkii maa shaa allahu tabaaraka wa tacaala yani casharkaan horta wuxuu ahaa aan jeedinayo xubinta ugu waan idin jeedinaya insha allah asagoo dhammaystiran laakiin hordhac keliyaan samaynaya bas yani wallahi been kuu sheegi maayo yani casharkaan keligiis wuxuu qaadan lahaa almost 1 hour ama 2 hours ama 3 hours yani casharkaan ah xubinta ugu daran ee ay ka kacsato haweenaydu ama haweenku ay ka kacsadaan iyo xubinta ugu daran ee raggu ay ka kacsadaan all right yaa sheegi kara bal qiyaasa sheega isku daya qaar baa soo qoraya waa naasaha qaar baa soo qoraya waa barida qaar baa soo qoraya waa lugaha qaar baa soo qoraya waa timaha qaar baa soo qoraya waa halkaas raggu waa xagga ayaguna sheega xubinta ugu daran oo naaguhu ay ka kacsadaan sheega bam bam all right hello soo dhawaad argacli adeer macana soo dhawow nin sheekho walaalaan xurmeeyo aadan u jeclaatay nafsadiis waxaad ka sheekeynay maxaan ka sheekaynay zinadaan ka sheekaynay iyo xaaraan inay tahay iyo xumaan inay tahay maxaan kaloo sheegnay dumarkay waxaad ka sheekeynaysa iska daaniyo nin aad loo daawado oo nin fiican oo diin leh wataa waa yahay laakiin maadaama guryaha ay burbureen in wax cilmi ah oo dhallinyaradii iyo reerihii iyo qoyskii iyo dumarkii iyo gabdhihii anfacaya si goryihii u dhismaan soo wax fiican ma may hawlahaas kuuma fiican nin odayaa tahay nin wadaagaa tahay marka waxyaalaha kale inaad ka sheekaysaa kuu fiican oo siyaasadda iyo hawlahaas kale maaragta haa xoogaa kiriidkaada hoos u dhigaysaa ma garat waaya walaalle insha allah waa kaa qaad taladaas khayr allah ku siiyo waxaa jira dad cajaladahayga alayhi salaam cajaladahayga jarjara oo ii muujiya nin xumaanta faafiya haa walaalle waan ka xunnaa sheekaysta in lagu qaqabsado waa sheeqeyni baa tahay ma garat haya aad baan kuu salaamayaa saaxiib anigu eelad baan wataa bahashiisii idala dhahay baan nafta iga qaada sheeko yaa bahashiisii idala dhahay baan nafta iga qaada maxaa soo kiiba waa garta marka siigu maalintii almost 3 jeer baa gashtaa waa garta marka sheeko dadka meesha kuugu duraan dee ha iisoo wada duceeyaan adigana iisoo duceey ilaahay waxaan ka baryayaa faraj inuu kuu furo walaalow gabdhihii baa guurta xaggee joogtaa Falastiin baa joogaa walaalow gabdhihii baa guur u baahna maa guursati maba waa xeladii ilaahay waxaan ka baryayaa gabar khayr qabta allah ku siiyo aamiin wassalaamu calaykum waraxmat ullah خيارة أنت سيجت شيء مركز 10 كيلو بالله بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن قاركين بميل بي أو تلفق عندميو إن تلفق كيو هذا الشيء قار بميل بي كله فتان قار واحد هو حقه قار واحد هو حقه قار واحد هو بريدة قار واحد هو هلا وزير هلو السلام وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام هذا بعتر يور ها ونن قردون أو جوجا شرملكا ما قرأت هيا
inaad yaro meesha naag la'aan baa ka dhacda ma fahanta jarmalka naag la'aan baa ka jirta aad iyo aad naag la'aan baa ka jirta ilaahay waxaan ka baryayaa naaga khayr qabanaysa wareedhe waa la isgoobayaa waa la iswaaye ha la israadsado oo ha la isguursado oo qootada iyo zinada iyo xaaraanta la iska daayo gaabsiga oo gabdhaha yaan la xumaynin oo ragga yaan la xumaynin oo ilaahay ha la aamino allana walaala la yahay ha la isku kalsoonaado wareeraha ha la isguursado ma ka fahanteen waan garana hadda wax aniga guurdoon baan ahay naag miloo haysa aan guursano gabadhii guurdoon hey meeqa sana jirta adeer aniga waxaan jiraa 25 sano 25 sano ilaahay waxaan ka baryaa naa khayr qabta inuu taleefankaaga ma siin karaa alow sii kartaa nin diyaarsan baan haddaba aseero ma fahanta adeerow ma ciyaaraysaa mise ilaahay baan kugu dhaarshay waa kaa dhab maya daba aseer aniga xaqiiq bay iga tahay qof guurdoona baan ah ma garat waayo insha allah waa lagula soo xiriya insha allah gabdhaha jarmal meel walba raggii waa siigaa dishay raggii siigo waa siigaysanayaan siigaa dishay raggii alla isguursado siiga maa dhahdaa sidaa u siigaysanayna kuna istaagaa ka dhici rabnaa ma fahanta daba aseer ilaahay waxaan ka baryay gabdha khayr qaba allah idin siiyo nambarkiisa sheeg bay la yidhi gabdhaha waxay ku leeyihiin nambarkiisa sheeg nambarkaaga wixii ka dhacayaa ka dhicin maya nambarka waxaa waaye qof tirato gooni u soo siiyo ma garan aad baa u salaamad asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام maxaa cusub يوي okay saaxiibayaalow idinkaa waqtiga iga lumiyey waa deminayaa taleefonka wakaas halo shut down waqtigaas ka luminin haddii laa kudmi waa dansan yahay waqtigaas ka luminin all right soomaaliya ha noolaato ha israacdo gabre ha dhaco gabre gabalkiisi baa dhacay huraaliyaalku ha dhaceen cadowga soomaaliya ha laga saaro liyu booliska ha la gowraco lacnatullahi calayhim tuulo walba ha lagu gowraco intaas waa hordhac yar oo aan maaragtay advertisement aan ku darsaday weeye waxaa inoo ballana liyu booliska tuulo walba degmo walba in lagu gowraco intaasaa inoo ballan hadii lahay gudmaayo walaalayaal baaraka allahu fiikum xubinta ay dumarku ugu kacsi badan yihiin ama ay ka kacsadaan qaar baa waxay ku leeyihin naasaha ka kacsadaan qaar baa waxay ku leeyihin halkan qaar baa waxay ku leeyihin halka kan qaar baa waxay ku leeyihin halka kan qaar baa waxay ku leeyihin halka kan qaar baa waxay ku leeyihin bawdiyaha meelaha dambe qaar baa waxay ku leeyihin waa gudaha fog qaar baa waxay ku leeyihin waa bishiba qaar waxay ku leeyihin waa geedka yarka oo laska xiiro qaar waxay ku gabdhihiin qaar waxay ku leeyihin nimanku waxay ka kacsadaan halkaas nimanka waxay geedka nimanka waxay xagga nimanka waxay ka qota okay nimanka waxay xagga ka haystaan cajalada kolba